السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا خيارت كحنا شان كان صومالي نتوي جلاسو وحنا نسعد كورس كنا مقعبا كومبتيا سكورتي بلاس كاران شابتركي وحنا كوجد جنا صدحات أيين وحنا كصورنا ما يرب إحنا من مدة دول ساجني نتوي الفيسيس كان كسو جد بني سيدا كلو حلو يقاني وحوها أرين كل بعض ها فيزيكال ميديا أما كوميونيكيشن ميديا سجود هاني waxaan kala ka soo biray remote access waxa loo yaqaano imaanta waxaan eegi doonaa erebixin loo yaqaano file transfer protocol ama protocol loo yaqaano file transfer protocol baan eegi doonaa waxaan leenahay file transfer protocol waxa loo yaqaanaa FTP oo ah port numberkiisu yahay 22 protocolkan loo yaqaan 22 isaga labadaba haysta waa protocol iska networking-ka ku dhaxaragn marka wax weey iska miraajacaan weeyaan بروتوكولka waxaan isla soo ogsanaa protocol-ka loo yaqaan waa protocol-ka ka mas'uulka ah in faylasha la isku diro oo maanta marka aniga computer-kaagu kana kala yahay computer-ku kana kala yahay kana yahay computer-kii saaxiibka uu saaxiibka ku dhado file-ka ay soo dir ama video-ga ay soo dir ama sawirka ay soo dir protocol-ka ka mas'uulka in computer-ka ay xogtu ka timaado kana ay timaado waa protocol-ka loo yaqaan FTP file transfer protocol isla sheeg inta miyay ugu adkaanaysaa file transfer protocol-ka ka mas'uulka ah inay computer ama qalabyo isweydaarsadaan faylashaas ama ha noqdaan faylal muhiima ama qaar aan muhiimahay ama ha noqdaan labada computer meel wada joogo sida doonta noqotay protocol-ka mas'uulka loo yaqaan file transfer protocol port number-ku adeegsan 20 iyo 21 waxa badanaa waa protocol-ka ugu caansan faylasha qaada laakiin waxaa jira sidoo kale protocol kale iyaguna faylasha qaada protocol-da kale waxa kamid ah protocol loo yaqaan trivial file transfer protocol trivial file transfer protocol-ku si magisa kaaga muuqata file transfer protocol ama FTP-gii hore uu ka yar yahay waa symbol protocol ka symbolsan ama ka yar kaasoo badana wuxuu qaada basic files faylasha aad ka yar ayuu qaada faylashu qaado waxa kamid ah configuration router-kaaga kala configuration kala ku sameysay protocol-ka qaaday waa FTP-ga ama switch-kaaga aad ku sameysay configuration-ku ka qaadi server-ku soo dhig marka badan wuxuu qaadaa uu kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay laba shay ku kaga duwan yahay waxa weeyaan ama hal shay baan dhahay wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan in uu qaado faylasha aad ka yar laakiin kii hore iyo kan waxa ka midaysan no user authentication ama authentication kiisana aad buu garanaysaa kan authentication male waxa loo yaqaan authentication male marka farqiga kaliya u dhaxeeyo maxay baan dhahnay kaas wuxuu qaadi jiray faylasha aad ka waaweyn ama huge files kana wuxuu qaadaa basic file ama simple files uu qaadaa protocol-ka saddexaad ee la shaqo ah protocol-ka loo yaqaan FTP waxa loo yaqaan secure file transfer protocol oo loo soo gaabiyo SFTP waxa leenahay waa protocol kaasoo kuwii hore la shaqo ama wuxuu qaadaa maxay xogtu qaaday laakiin wuxuu kaga duwan securely weeyaan uu ka amni badan yahay waxaanu qaadaa faylasha aad ka waaweyn iyo xogta xasaasiga marka kii ugu horeeyay FTP-ga xogta waaweyn buu qaadi jiray laakiin secure ma ahay TFTP-guna secure-na ma ahay xogtu qaadayna waxa faylasha aad ka yar kan labadii hore wuxuu kaga duwan xogtu qaadana waa tii waaweyneed walka wuxuu kala midaysan yahay FTP-gi laakiin waa secure ama waxa lagu qaadaa ama uu qaado xogta aad ka muhiimsan tusaale kan computer wan oo kala yaala halkan waxa weeyaan waa server-kii loo rabay in xogta la geeyo markoobaadka computer-ka xogta ka baxaysa access protocol-ka yaqaan SFTP ayaa wuxuu sameynayaa inuu xogtaada ku sameeyo wax loo yaqaan encryption oo dahaaro ama baasir ku xulaa ama encryption gareeyo markuu encryption gareeyo encryption waa aniga ku sheegnay waa xogtaada in loo bedelo nidaam aan loo akhrin karin deetana wuxuu ka dhigayaa nidaam loo yaqaan cipher text koorma xogtaada cipher text noqoto waa marka encryption lagu sameeyo marka internet-ka xogteeda waxa dhaxmarsa iyadoo cipher text-iya markay saaxiibka u imanayso ama server-ka ay imanayso ayaa waxa lagu sameeyo loo yaqaan decryption in xogta asalkeeda hore lagu soo celiyo oo laga dhigo readable way xog la akhrin karayo deetana marka server-kaaga timaado ayaa xogtaada noqonaysa mid la akhrin karayo marka inta u dhaxaysa adiga ka imanayso ilaa server-ka waxay tahay xogtaada mid cipher text ama la akhrin karin markii labadiina kala joogtana plain text qoraal la akhrin karayo protocol-ka afraad ee la shaqo ah ama xogta inoo qaado waxa loo yaqaan secure copy protocol ama SCP protocol-kana waa protocol la mid ah protocol-ladii hore laakiin wuxuu kaga duwan yahay badana waa wuxuu qaadaa faylasha uu kala qaadaa
local hosti and remote hosti qalab laba qalab oo kala fog ayuu u kala qaadaa tusaale haddii yahay kan computerkaagii oo local machine ah oo yahay kana serverkaagii oo kale remote server ka fog waa protocolkani qaadaya ama wuxuu u kala qaadaa between two remote hosts ama laba computer ama laba server oo aad u kala fog silafane ama laba qalab oo meel wada yaalo xogta u qaada si secure ah ama laba computer ama laba server oo aad u kala fog marka afarta protocol ba waa protocol shaqadoodu tahay transfer file transfer service adeegyada file qaadashada ama filasha la qaadaya aamin ha noqoto ma yaan aamin noqonay waa afarta protocol ugu caansan haddaan soo dul marno protocolku ugu horeeyo waxa file transfer protocol laba astaamood buu lahaa horta xogta qaada way xog aad waaweyn laakiin maaha secure maaha kan loo yaqaan trivial file transfer protocol xogtu qaadana aad buu yartahay authentication male maxaan ka wadnaa username iyo password male ama secure maaha protocolka saddexaad loo yaqaan secure file transfer protocol SFTP waa protocol xog waaweyn qaada xogtu qaadana ay xogta xasaasiga lana authentication protocolka afraad loo yaqaan secure copy protocol waa protocol xogta uu qaada ay tahay xog magaranaysa secure ah laakiin badan wuxuu kala qaadaa laba qalab ama meel wada jooga ama laba qalab oo aad u kala fog oo remote servers ah intaas aan ku soo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.